بسم الله الرحمن الرحيم. وأستاذ حسين محمد عبد الرحمن. إن شاء الله waxaan soo gelin doonaa ama soo duubi doonaa tenniskii labaad oo ahaa present simple tense ama simple present tense. midkaa doontood oran kartaa. mowduuc waxyaabaha hoos imaan kara ayaa ah waa maxay present simple ama simple present tense maxaa loo isticmaalaa. What is the rule of simple present tense? sharciga uu leeyahay present simple tense waa maxay? Give an example tusaale naga sii. laakiin waa inaan xasuusnaanaa present simple tense ama simple present tense waxa uu leeyahay auxiliary verbs ayuu leeyahay oo ah do i does oo hadhowti looga dhigi doono su-aal looga dhigi doono. okay balaaban guda galno. simple present tense maxaa loo isticmaalaa? is used waxaa loo isticmaalaa to express an action. meeshaan which kama rabin that aan ka rabay raalli ahaada sorry. meeshaan that ayaa laga rabay. is used to express an action that happens every day. which is happens ma aha. that meeshaan that ayaan ka rabay which an action which meesha ku qoranta which ma ahan that ayaan ka rabay sorry. is used to express an action hadda lama bedeli karo xoogaa kaamirada aan ku duubaya inay xoogaa iga jarmataan ka baqaya marka ka raali ahaada meeshaas waxaad ka dhigataan which ay tahay halka which ay tahay waxaa ka dhigataan daad ka dhigta insha Allah. okay is used waxaa loo isticmaalaa to express an action that happens every day. waxaa loo isticmaalaa action ama ficil ama fal dhaca every day. tusaale maalin walba subax walba u raactaa sax markaas ficil noocaas oo kale ayaa loo isticmaalaa oo every day dhaca. okay rule laba sharci ayuu leeyahay. rule sharciga oo simple present tense waa laba sharci. okay waxaan oranaynaa rule 1 iyo rule 2. ruleka koowaad marka muxuu noqonayaa subject plus verb plus object. rule 2 muxuu noqon doonaa subject plus verb plus s/es/ies plus object. yaa isticmaali doona marka rule 1. rule 2 yaa isticmaali doona. rule 1 waxaa isticmaali doona I we they you ayaa isticmaali doona. rule 2 yaa isticmaali doona he she it iyo singular noun. singular noun waxaa loo yaqaanaa tusaale ahaan abdi oo kale. abdi waa hal magac singular noun ku raacsan yahay wuxuu qaadan doonaa ruleka labaad. abdi and axmed tusaale haddii la dhahana rulekaas intuu noqon doonaa rule 1 ayuu noqon doonaa oo waa plural waa soo ma. okay example buliska aan usoo gudubna marka I play football. hadda I play football rulekay raacsan tahay ruleka koowaad waa subjectigi oo I ah verbkii oo play ah footballkii oo objectigi ah. I play football aniga waxaan ciyaaraa kubad mar walbaan ciyaaraa soo ma. he eats banana wuxuu cunaa moos every day uu cunaa. sababta aan he eats verbki eat u ahaa aan s ugu daray waxay tahay waa ruleka labaad ayuu qaataa. ruleka labaadna sharciis wuxuu ahaa subjectiga oo he ah verbki oo eat ah plus s waka s aan ku daray soo ma jeed. okay he eats banana wuxuu cunaa moos asaga moos ayuu cunaa every day uu cunaa. she cooks lunch maalin walba qadada ayadaa kariso. she cooks lunch ayada waxay karisaa qadada every day karisaa ma oho. they read lessons ayaga waxay akhriyaan casharadooda every day way akhriyaan. we drink water biyo ayaan cabnaa every day biyaan cabnaa right. you speak to me aniga ila hadashaa every day waa ila soo hadashaa macnaha ama idinka waa ila hadashaan every day waa ila hadashaan. it eats meat iyadu waxay cuntaa hilibka ayay cuntaa. marka it waxaa loo isticmaalaa keliya xayawaanada ama waxyaabaha aan nooleen. okay aan isla fahano it uma isticmaali kartid qof bani aadan ah naag ha noqdo ama rag ha noqdo uma isticmaali kartid it uma isticmaali kartid. it kaliya waxaa u isticmaali kartaa geedaha lacag waxyaabaha aan nooleen bani aadanka aan ahayn xayawaanada kuwaas ayaad u isticmaali kartaa. it is a cat ayaa dhigi kartaa iyadoo waa mukulaal biyo oo kale lacag oo kale it ayaa loo isticmaali doonaa marka it is waxay cuntaa meat hilibka ayay cuntaa mukulaasha ula jeedahay waxay cuntaa hilibka every day ayay cuntaa. waxaan u guda galno affirmative and negative. qaybtan koowaad affirmative ayaa la yiraahdaa waa hadal caadi ah. hadalka caadiga marka muxuu noqonayaa he eats banana isaga wuxuu cunaa moos ayuu cunaa every day wuu cunaa. she cooks lunch ayada qaday karisaa every day ay karisaa. they read lessons
ayaga waxay akhriyaan casharadooda. We drink water, anaga waxaynu cabnaa biyo. You speak to me, anigaad ila hadashaa adiga. It eats meat, iyada waxay cuntaa hilibka. I play football, aniga kubad ayaan ciyaaraa. intaan marka waxay noo cadeynayaan waa affirmative ama waa hadal caadi ah oo haddana everyday dhaco. Right? Waa isla fahanay sooma. Negative ama negative saad doonto waad oran kartaa. I don't negative marka wuxuu noqonayaa waa inuu meesha soo galaa. Hadda marka waxaa soo galay auxiliary verbs ka meesha hadda soo galeen. Auxiliary verbs waxay soo galaan kaliya 3 meelood. Markay negative tahay, markay interrogative tahay iyo markay negative with interrogative ay tahay. Okay. Example code am tusaale ugu hore wuxuu noqon doonaa I don't play football. Aniga kubad ma ciyaaro. Xirwa aha macna. I don't play football. Aniga kubad ma ciyaaro. Ama waxaad dhihi kartaa I don't play football. I do not play football. Waa macnaha long form waaye but waa soo gaabsan kartaa. Waxaad oran kartaa I don't play football. Kubad ma ciyaaro. Ani marka waa xoogaa damiin far waaweyn wax lagu baraa damiinatiin kama wado. Laakiin xoogaa inaan kala bixiyo ayaan jeclaystay. Sorry. I do not play football. ayaan usoo qoray macnaheedna waxaa la dhihi karaa I don't play football. Aniga kubad ma ciyaaro. He does not eat banana. ama waxaa kaloo oran kartaa he doesn't eat banana. isaga moos ma cuno. waaba la diiday maba cuno moos. She doesn't cook lunch. ama waxaa kaloo oran kartaa she does not cook lunch. ayada qadada ma kariso. They do not read lessons. ayaga casharadooda ma akhriyaan. ama waxaa kale oran karnaa short form ka ah they don't read lessons. We don't hadda marka do not iyo don't waa fahnay. Do not waa long form waaye. Don't maxaa waaye waa iyadoo la soo gaabsaday short form laga dhigtay. Right? waa isla fahnaa filaa. We don't drink water. anaga cabitaan ama biyo ma cabno. cabitaan hadii la dhaho yani waxay noqonaysaa choice noqonaysaa marka biyo aan dhahno. We don't drink water. anaga biyo ma cabno. You don't speak to me. adiga ani ma ila hadashid ama aniga ilama hadashaan idinka. It doesn't eat meat. ayada hilib ma cunto ama it does not eat meat. ayada hilibka ma cunto. aan u gudubno question. sidee su'aal looga dhigaa? auxiliary verbs ki ayaa la soo hormarinayaa. subject ki ayaa lagu xijinayaa. Okay. Interrogative iyo question waxaan soo sheegay inay same yihiin. haddii lagu dhaho jumladan interrogative ka dhig waxaa loola jeedaa jumladan su'aal ka dhigaa loola jeedaa. haddii lagu dhaho jumladan ka dhig questionna interrogative le loola jeedaa. marka interrogative iyo question are same weeyaan insha Allah. su'aala aan ka dhigno marka interrogative aan ka dhigno ama question aan ka dhigno su'aal. Do I play football? ma aniga kubad ciyaara. aniga kubad miyaan ciyaaraa? Do I play football? aniga banooni maan dheelaa. Does he eat banana? isaga moos muu cunaa. adaa lagu weydiinayaa isaga moos muu cunaa. Does he cook lunch? ayada qadamay karisaa. Do they read lessons? ayaga casharadooda may akhriyaan. Do we drink water? anaga biyo miyaan cabnaa. Do you speak to me? aniga ma ila had Do you speak to me? aniga miyaad ila hadashaa. ama waxaa kale oran karnaa do you speak to me? idinka ani maa ila hadashaan. Does it eat meat? ayad hilib miyay cuntaa. su'aalo wey marka adiga la weydiinayo waxaa lagu leeyahay waxaas adiga banooni may dheeshaa. ayad hilib may cuntaa. qada may karisaa. waa ka right inaa isla fahanaa filaa. Okay, aan u gudubno negative ama negative with interrogative. Sorry. waxaan oranaynaa tan koowaad tusaalaha koowaad. Do not haday waa idin sheegay. Do not haddaan dhahno iyo haddaan don't dhahno waa short iyo waxay kala yihiin bas iyo long kali. waa iyadoo jumladii la dheereeyay iyadoo la soo gaabsaday le waay. Okay, aan marka don't waxa ku qurux badan tahay don't oranaya marka. ha isdhihin marka meesha do not ku qoranay muxuu don't u leeyahay yaa la isdhihin. Okay, aan bilowno. Don't I play football? aniga kubad ma ciyaari miyaa. waa diidmi su'aalisa socoto weeyaan. Does not ama does not dheh ama doesn't dheh waa isku mid. Doesn't he eat banana? isaga moos ma cuno miyaa. Doesn't she cook lunch? ayada qada ma karisa miyaa. Does not they read lessons? Do not dheh ama don't dheh waa isku mid. Don't they read lessons? ayaga casharadooda ma akhriyaan miyaa.
don't we drink water anaga biyo ma cabna miya don't we speak to me don't you speak to me idinka aniga ilama hadashaan miya ama waxaa kale oran karnaa don't you speak to me aniga ilama hadashid miya doesn't it eat meat ayada hilib ma cunto miya ama waxaa kale oran karnaa does not it eat meat ayada hilibka ma cunto miya halkaas ayaan kusoo gabagabeynay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa anigoo ah ustaad xuseen maxamed cabdiraxmaan insha allah ilaahay ayaa noo suurtageliyay in aan soo geliyo tayniskii labaad haddana insha allahu hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaa idiin soo gelin doonaa tayniskii saddexaad ayaan soo gelin doonaa sida isugu xigaan ayaan soo gelin doonaa insha allahu sida markaas ani aan isleeyahay waa loo fahmi karaa ayaan usoo gelin doonaa anigoo weliba sameyn doona affirmative-kiisa sida affirmative asigoo ah loogu bedeli lahay negative loogu bedeli lahay question loogu bedeli lahay question with negative intaas ayaan soo sameyn doonaa insha allahu marka waxaad ila haysaan auxiliary verbska oo present continuous tense wuxuu ahaa amis aru ahay auxiliary verbska oo simple present muxuu noqon doonaa do it does xasuusnow remember that okay waa mahadsantihiin pagekayga ama youtube channelkayga waxaa subscribe hala saaro like share haddii ay casharada ay ku dhiirageliyeen ama aad wax ka fahantay igu soo qor meesha hoose commentiska waxaa igu soo qortaa wax ayaan kaa fahmay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxbarasho horumar leh